بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن شاء الله maanta waxaan qaadan doonaa slaabka wuxuu ku jiraa kuwa ugu muhiimsan markii la isticmaalayo arjikadka aadna loogu baahan yahay inaan iskaga ilaaliyo xagga cabiraadkiisa iyo wax oo dhan inaad tahay qof si fiican u fahansan inaad tahay okay waxaan leenahay meel fiican oo inoo marayay kowdii marka hore slaabka sameynaysid marka hore waa inaad tagtaa ground floor kaagi kadib slaabka tageena kadib slaabka settingkiisa furayna kadib slaabka waxa leenahay qaybtana dooranayna ay qoran tahay structure base sidii wallkii oo kale kadib waxaan sameynaynaa qaybta guriga carab buuxintii iyo wixii oo dhan waxaan leenahay waxaan nooga dhigtaa 0.6 nooga dhig sidaas oo kale meesha ka soo kacaysa 0 waa thicknesskiisana 60 cm waa okay labada meel aan furaynaa qaybta kore waxaan leenahay waxaan nooga dhigtaa BQ 02 nida BQ 02 kana yelowgan ba noogu dhaaf kadib waxaa dhahdaa waxaan u baahanahay inta aan ugu baahanahay guriga dhexe bis ayaan ugu baahanahay rectangle ha ka dhigin line ka dhigo geeskan ka soo bilaab ama dhaxdaba geey pianterka dhinaca kala fadhiisana adiga marka geeskan saaro ilaa inta sidaas oo kale ilaa inta sidaas oo kale sigoo toosan shift qabo si aad inta ugu toosisid marka okay ilaa dhulkii ilaa intaas inay kacda santahay in la arko okay sidaas oo kale ilaa darbigaas iigay kadibna darbigaas ay geynina waxaan dhahdaa tookada ilaa guriga dhexdiisa loo baahanaa okay waxaan sameynaa aragna marka waa ka marka majida carab buuxintii iyo wixii oo dhan waa soo wada sameeyay hadda waxaan laga baahan yahay marka pianterkii laga baahan yahay pianterkii ilaan wixii kan qari lahaa pianterkii somehow pianterkan oo ku hormari kartaa labadaas option baad ay ku furan tahay marka pianterka sameynayso waxa leeyahay laba si baa sameyn kartaa rectangle qaado hal mar wada sameey sidaas aa wada fiican rectangle soo qaado geeskan click ku sii kadibna ilaa geeska kale iigay marka geeska ilaa geeska geesid shift qabo wallkan dooro kadib waxaa dhahdaa 10 cm si loo arko 10 cm dhinac kasta ugu baax offset qaado marka kan wuxuu kugu soo bixi karaa marka point taabatid okay kadib waxaa dhahdaa banaanka waxa ugu soo baxdaa 10 cm enter 10 cm kadib 3D aan dhaho hadda marka waa ka yaan teebki waa ifadhiyaa laakiin meelaan wax ugu baahnay inaan ku arko waa meeshan dhexe ba ugu baahni marka okay sida darteed marka waxaa leeyahay pianterka point kamid ah dooro kadib waxaa ii soo qaadataa minuska inta dhexe bixiyaa leeyahay inta dhexe bixi marka bixisid waa ka inta dhexe oo dhan waa ka bixiye waa ka intaas marka sameeyay kadib haddana waxaan sameynayaa wallkii ay wada dooranay asiga kan yelowgan dhexaan ka rabaa marka dhammaan wada naqdaan marka waxaan nooga dhigtaa waa kana stonekan nooga dhig yelowga okay kadib 3D da waa okay waxaan u baahanahay marka slaabka oo backing ahaa ayaa ii dhiman slaabka backing waxaa leeyahay slaab waa ii dooran yahay tookadan waxaa ka bedelmay labada hore isku cabir waa cabir ahaan waxba ka bedelaysa waa kan saddexaad marka kan saddexaad waxaa leeyahay kor waxaa iga dhigtaa 10 cm 10 cm markuu ka dhigo hoosna waxaa dhahdaa -6 kiida 10 cm hoos u gal kalar ahaan isku wada ekaado kadibna kanba iga xir kadib labadan waxaa ka dhigtaa earth brownka iga dhigdo hadda waa bedeli doonaa laakiin intaas markaa dhigo line ba soo qaadanaya intaan dhexan geesana marka geeskan ka soo qabanaa
okay ilaa intaas oo raacina kadibna inta hadaati guriga dhexe aan ugu tagay intaasaan saaranaya okay ilaa geeskaas imaan kadib sidaas oo kale kan ilaa geeska kan ilaa geeska kadibna si toos isku xir intaas markaa samaysid kadib 3D aan dhaho marka laakiin cabirkiiya wax ka qaldan asiga dooro kadib settingkiisa furo kaas nadiif waay kan negative meesha laga rabay wuxuu ka dhigay positive waay negative gelibis negative 0.6 macnaha 0.6 ka biyaanteerka hoos inaa ka martid aan rabaa waay okay waa ka markaas waxaad diga soo maaha intaas jaranjartii aan ii dhima markay yareed inaan ku karo jaranjartii marka waxaa leeyahay janjaray soo qabo kadib janjarta aan hagaajinaa janjarta waxaa leeyahay leenaan wataa inta maxaa ugu soo baxdaa 0.3 igu soo baxday kadib ilaa keeskan keen waxaa dhahdaa meter iyo 20 ii dhex meter bara ii soo baxay 0.3 ayaan ka jaray sidoo kale waan ku aadinaa sidoo markuu ku aado waxaa dib u soo dhaafinaa 0.2 oo kale oo dhaafi xataa afwan kan waxaa ii dhahdaa 0.3 intana meter iyo 20 sidaas oo kale kan inaan qabato shifta geeskan click igu see kadib waxaa ii soo dhaafisaa 0.2 geeskan click igu see click geeskan kale igu see kana click igu see intaas markaa sameey kuwa kalaan u baahanahay marka kuwa kale asiga lee ka dhex abuuraa kliga leeyahay offset ida control taabo si balaas u noqdo control markaa taabatid kadib waxaa dhahdaa 0.3 banaankii ugu bax mar kale taabo waxaa u baahanahay dheeda adoo control taabatay 0.6 aan u baahanahay 0.6 ayaan u baahanahay intaas markaa sameeyay kadib scale baan leeyahay waxaan dooranaa kan iyo kan la dooro point kamida klikiisi calaamada mainiska soo qaadato kala intaadan u baahnayn ka bixi ilaa okay waa ka intaas koran ka bixi intaan kale meeshii la rabaa laga soo kori karaa cabirkii hadda hagaajina marka kanaan dooranaa waxaa leeyahay cabirka waxaa iga dhigtaa kor xagga waxaa ka dhigtaa 0.45 iga dhig thickness gaas kore kanne negative 0.15 ii dheh waa kan kore okay ha isku wada ekaado dhagaxaana sandstone ii doora sandstone okay waa kii koowaad kan labaadaan ku xijinaa waxaa leeyahay kan labaad sina wada fur cabirka waxaa kuu soo haray kor 45 oo kii hore ahaa kan 0.3 aa leedahay kanne negative 0.3 macnaha kan hoosane negative ka markasta 0.15 ah ku daraysa kaasne 15 ah ka jaraysa warkaas in la fahmaa rajayna okay kanna dhagaxan ka dhigay waxaa ii soo haray halka ugu dambeeyo kan ugu dambeeya cabirkan ka dhigayo qaybta kore waxaa leedahay negative 50 kor waxaa ka dhigaysaa 15 waxaa ka dhigaysaa 15 hoosna negative 0.45 enough 50 oo ahaa kii dhexe noqona kana 45 oo noqona okay sandstone ka biga dhig stone ki okay hadda 3D aan dhaxal markaasaan u arko waa ka soo baxay wax qurux badan waa ka intaas kadib waxaa leeyahay janjarta qaybtan kale u baahanahay waxaan dooranaa qaybtaas doornaa qaybta kadib control shift d aan leeyahay waxaan qabanaa geeskan ilaa geeskan kale kadib sidaas oo kale split ida okay qaybtan ee bixi okay split ida qaybtan iska baxde ka labaad dooro asigana ay sameysaa qaybta ziyaadada ah ii tusi intaan bixi kii saddexaad ku soo haray kii saddexaad asigana qaybtan iska bixi hada 3D day marka saan u arko darbigaas qaybtaas kale waa ka
soo baxay qurux badan soo ma intaas waxaan ku dhameynay islaabkii aan wadnay hal xab waxaan ku daraa kii weynaa dhulka fadhiisana kii weynaa dhulka fadhiisana waxaa leeyahay islaab ii dooro marka hore marka ku doorto kadib waxaa dhahdaa kor waxaa ka dhigtaa pointinkiis nadiif ah ahaado kanne -0.6 dhehba dhulkana insha Allah color qaas aan sameyn doonaa laakiin hadda glass green ida okay kadib rectangle soo qaado leen ma aha soo hal mar dhulka u fadhiisto waa laakiin guriga intiisa dhexe waa inuu ka sameysmo qaybta soo qabso kadib minus waa wadataa inta guriga ma ugu baahnay inta guriga ka saar soo rectangle soo qaadatay iga saar waa ka cabirka waa ka wajida ashirkeeni maanta intaas ayaan joojinayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi